waa beel iska dhan oo dadkeedu aysan gaboobin boqol jirkooda ayaa konton jir loogu dhaartaa wax kasta oo ay quutaanna iyaga ayaa la soo baxa waa beel ka maarantay magaalooyinka iyaga oo nolol barwaaqo iyo baraare ah ka aasaastay dhulka hawdka ah ee aan sida sahalka lagu iman karin marka uu soo booqdo qof 60 jir ah oo ka cabanaya aragga oo liita lafa xanuun iyo gabow waa ay ku qosqoslaan Jimane waa beel ka tirsan beelaha waddanka Bolivia waxa ay ku nool yihiin kaymaha jiqda ah ee dhulka Bolivia kaymahaasi oo ah kuwa caalamka ugu ballaaran ee caanka ah ee loo yaqaan Amazon hidde iyo dhaqan waxa uu ah ugaarsiga duurjoogta warmaha gaashaanka iyo qaansada waa dhul uusan roobku ka qaadin dhirtuna isxirxirtay oo jiq ay tahay isla markaana aadan arki karayn wax ka badan dhowr mitir oo hortaada ah caleemaha dhirta qaarkood dhaxanta ayaa laga huwadaa halka roobka marka uu da'ayana sidii dalladii la isaga dhigo waaweynaantooda darteed qof kasta waxaa shardi ah in uu baangad weyn oo af badan gacanta horay ugu sii qaato marka uu lugaynayo laba sababood oo waaweyn dartood waa tan hore in geedaha lagu jaro si jidka kaa horeeya aad u banaysato iyo tan labaad oo ah hab difaac ah waa intaas oo uu bahal kugu soo boodaaye halkani waa webiga Limani ee waqooyiga Bolivia ee dhex mara kaymaha Amazon halka waxaa degan dad reer miyi ah oo ku nool waxa ay ka helaan dhulka dabiiciga ah ee ay awowayaashood ay ka soo gaareen halka dadka soo dhaweynta u qaabilsan socotada ku cusub waxa ka mid ah Mama Martina waxa ay kaynta dhexdeeda ay ka goosataa oo uga soo baxa muuska waxa ay quutaan oo dhan beeraha ayay ka soo go'aan dhirta la isku daaweeyo iyo caleen kasta xubinta jirka ka tirsan ee ay daawada ay u tahay waa la yaqaan waxa ay ka soo gaareen waalidkood maadaama dhulka hoodka ahi uu yahay mid qoyan oo kaneeco badan xitaa waxaa jira geed ka hortag u ah malaariyada oo kumaba dhacdo duumo Mama Martina hadda waxa ay u muuqataa 70 jir laakiin waxay dabshidkii la soo dhaafay ay u dabaaldegaysay dhalashadeedii boqolaad amaba 100 sano ma jirto qof deegaankan degan oo gabowgu uu ka muuqdo jir ahaan iyo awood ahaan intaba waxa ay sidoo kale ay sheegtay in odaygeedu uu yahay inan yar oo iyada aad uga da'yar waa 80 jir oo kaliya caleenta kala duwan oo ilaa iyo 20 nooc ah qaar ayaa cuntada lagu karsadaa halka qaybo ka mid ah maraq ahaan loo cabo iyaga oo kulul hilibka kali ah ee ay cunaan ayaa ah hilibka cad sida kalluun wabiyeedka iyo digaaga inkasta oo aanay badsan Dr. Hillard Kaplan waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda New Mexico ee dalka Mareykanka halkan waxa uu u yimid si uu wax uga ogaado beeshan cajiibka ah gaar ahaan habnololeedkooda waxa uu sheegay in ay dadkani ay ku raaxaysanayaan caafimaadka ugu wanaagsan ee ay bulsho ay ku noolaato caalamka oo idil waxa uu sheegay in uu soo darsay oo uu soo ogaaday in aan halkan laga cunin waxaan dabiici ahayn gaar ahaanna caleemaha kala duwan iyo midhaha waxa uu intaasi ku daray in dadkani ay yihiin kuwa aad u firfircoon oo shaqo badan maalin kastana socda oo lugeeya dhul aad u dheer waa yeel iyo dhalaan qof aan shaqaynin ma jiro sidaa daraaddeed kuma arkaysid qof ay baruurtu ay halakaysay sida dalkii aan ka imid ee Mareykan ayuu yiri doctorku Dr. Hillard waxa ashqaraar ku riday habnololeedka beeshan ee aan waxba uga baahnayn waxna u ogeyn magaalooyinka waxa uu sheegay in isaga iyo koox kale oo saynis yahano dhinaca biologiga u badan ay halkani baari doonaan si ay wax uga ogaadaan sababta ka dambaysa in dadku gaboobi waayo ama ay u qaadi waayaan xanuunada magaalooyinka caanka ka ah sida wadna xanuunka cudurka macaanka dhiigkarka ama dhiigga oo dufanku uu ku bato waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax u ogaadaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad baad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته